Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaanba. Qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah xaaladda dagaal ee ka socota dalka Itoobiya oo caalamku aad uga deyriyay ayadoo ay dagaal xooggan ka socdaan duleedka magaalada Gondar ee caasimadda labaad ee gobolka Xamaarada. Sidoo kale dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxay sheegtay TPLF gabi ahaanba inay ka xoreysay gobolka Canfarta. sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa dalka Suudaan ku eedeysay inay ka dagaalamayso gudaha Itoobiya ay ciidamo badan ku soo daabulayso gudaha dalka Itoobiya. ciidamada Eritrea ayaa lagu eedeeyay inay dagaalka magaalada Disia ka socda inay qayb ka yihiin. sidoo kale Canfarta ayaa la soo sheegayaa inay dagaalo ku soo qaadeen deegaanka Soomaalida. dagaalada goosgoosana ay ka socdeen magaalada Candufo ee galbeedka gobolka City. daawadayaal marka hore taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 12 bisha 9 2022 hadaynu gudaha galo wararkeena oo faahfaahsan. dagaal xooggan ayaa waxa ay ka socdaan duleedka magaalada Gondar ee caasimadda labaad ee gobolka Xamaarada. waqooyiga magaalada Gondar habeennimadii xalay ahayd waxa ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada militariga iyo kuwa TPLF. dagaaladan ayaa ku soo beegmaya xilli ay dowladda federaalka ku sheegtay TPLF inay gabi ahaanba cagta marisay ayadoo TPLF-na go'aankeedu yahay inay qabsato magaalada Gondar. magaalada Gondar oo ah magaalo muhiim ah oo istiraatiiji ah dowladda iyo kooxaha dagaalamaya istiraatiiji ah ayaa waxaad moodaa inay dagaal xooggan oo aad la isku gubanayo ay ka dhici doonaan. TPLF ayaa weerar ku wada magaalada Gondar ayadoo la soo sheegay inay hubka meelaha fog gaarina ku garaacayso. sidoo kale huwanta ay dowladda federaalka hogaaminayso ayaa isdifaacid weyn gashay xalayna dagaal xooggan ayaa socday ayadoo magaalada bartamaheeda laga maqlay hubka la isweydaarsanayo. duleedka magaalada ayaa waxaa laga soo sheegay qax badan oo magaalooyinka deegaanada ku hareersan magaaladaasi. dadka ka soo qaxaya deegaanadaasi ayaa waxay soo gaareen magaalada Gondar ee caasimadda labaad ee gobolka Xamaarada. sidoo kale ciidamada Eritrea ayaa lagu eedeeyay inay dagaalka qayb ka yihiin kamid dagaalka ka socda galbeedka dalka Itoobiya. magaalada Disia ee caasimadda gobolka Wollo ayaa saddexdii bari la soo dhaafay waxaa ka socday dagaal aad u xooggan oo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo kooxda TPLF. TPLF ayaa waxay tiri halkaas waxaan dagaal weyn kula galay ciidamada Eritrea. dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku eedeeyay ciidamada Eritrea inay dagaal xooggan ka wadaan gudaha dalka Itoobiya. oo dalka Mareykanku uu una qabatayn saaray saraakiil badan oo ka tirsan ciidamada Eritrea. ciidamada Eritrea ayaa dhul badan oo gobolka Tigray ka tirsan gacanta ku haya ayagoo la sheegayo inay galbeedkan u soo gudbeen dalka Itoobiya waa gobolka Xamaarada. waqtigii uu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu la wareegay dalka xukunkiisa ayaa waxaa heshiis nabadeed ka dhacay dalka Itoobiya Eritrea oo dagaalo badan soo dhaxmareen. labadan dal oo colaad weyn soo qabay waqtigii TPLF dalka tayilnisana uu dagaalo ka dhacay xadka labada dal u dhaxeeya sida gobolka Badama ayaa la sheegay ilaa waqtigii uu Abiy qabsaday ilaa maalinkan maanta in labada dal Itoobiya iyo Eritrea wax dagaal dhaxdo ka dhicin. waqtigii uu TPLF Abiy weerarka ku qaaday ayaa Eritrea waxay go'aan ku gaadhay inay Abiy gacan siiso maadaama Abiy uu ku wareejiyay dhul badan oo markii hore la isku haystay una u saxay inay dalka Eritrea leedahay. TPLF ayaa waxay sheegtay in Eritrea garab siinaysa Abiy Ahmed danta ay leedahay inay dalka Itoobiya inay difaacdo. hase yeeshee Eritrea go'aankeedu yahay inay dalka Itoobiya burburkiisa ka taliso. dagaaladan ay wadana inay ahayn maslaxa Itoobiya u galeystay ay dana gaar oo khaas ah ka wadato. dalka Mareykanka ayaa ku eedeeyay Eritrea inay arrintan oo taariikh sax ah ahayn wadankeedana ay ku ekaato. dalka Itoobiya uu yahay dal madax bannaan oo u baahan ciidamada shisheeye inay soo galaan. qaaradani Afrika ciidanka kaliya ee ka dagaalamaya bartamaha Itoobiya ee Abiyna gacan siinaya waa dalka Eritrea. sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa dalka Suudaan waxay ku eedeysay inay soo hurinayaan maleeshiyaadka TPLF ama ciidamada Eritrea ama ciidamada Suudaan ay dagaal kula jiraan dowladda federaalka ayna ku sugayeen xadka oo dhul balaaran oo TPLF dagaal ka soo qaada ama jid ay martay u fureen. dowladda Itoobiya ayaa Suudaan waxay ku eedeysay inay ujeeddo gaar ah ka leedahay dagaalka ay ku soo qaaday dalka Itoobiya iyo dhul balaarsiga ay dowladda Suudaan wado. maalmo hore ay ahayd maalmihii ay dowladda Suudaan ay sheegtay dalka Itoobiya inuu hub soo galay gudaha Suudaan una ka wada qalaalasaan
aan looga baahnayn. sidoo kale dowladda Suudaan ayaa waxa ay sheegtay in Itoobiya ujeedadeedu ay tahay dagaalka ka socda gudaha Itoobiya inay soo leexisay dhanka Suudaan. dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in ciidamo badan oo dalka Suudaan ka socda gudaha dalka Itoobiya ay soo galeen ayna soo galbinayaan maleeshiya badan oo ka tirsan TPLF. maalmihii la soo dhaafay waxa la soo sheegay in ciidamo badan oo TPLF ka soo tallaabeen xadka gudaha Itoobiya ay soo galeen dalka Itoobiya iyo Suudaan ayaa ilaa waqtigii uu Dr. Abiy dalka qabsaday isku fiicneen labada dal iyadoo ahayd waqtigii uu Abiy dalka soo galay inay kooxda Suudaan ama dalka Suudaan uu go'aan ku qaatay inuu xarkaha uu jaro xiriirkii labada dal. dhibaatada ka dhex taagan dalka Suudaan iyo Itoobiya ayaa waxa saldhig u ahaa biyo-xidheenka webiga Niil. dalka Masar iyo Suudaan ayaa heshiis waxay ku yihiin dalweynaha Itoobiya inay ka hor istaagaan biyo-xidheenka uu dhisanayo. sidoo kale dalka Suudaan ayaa waxa uu sheegay in Itoobiya caqabad ku tahay ama jiritaanka Suudaanba ay Itoobiya caqabad ku tahay. sidoo kale dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay gabi ahaanba inay cagta marsay kooxihii TPLF ka dagaalamaya galbeedka gobolka Canfarta. dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay inay dagaal xooggan ku qaaday dhulkaasi dhul ballaaran ay TPLF ka xoreysay maalinnimadii shalay ahayd ay magaalooyinka ugu dambeeyay gacanteeda soo galeen. TPLF ayaa dhowr bilood ka dagaalamaysa gudaha gobolka Canfarta iyadoo in badan ku hanjabtay inay caasimadda Canfarta ee Samera ay gaari doonto ayna gacanta ku dhigi doonto maamul ay u magacaabi doonto gobolka Canfarta gabi ahaan kala diri doonto maamulka ka jira. sidoo kale TPLF ayaa usbuucayna soo dhamnay gantaalo waxay ku garaacday magaalada Samera ee caasimadda gobolka Canfarta. TPLF oo maalmihii ugu dambeeyay awood muujinaysay gobolka Canfarta oo la sheegay maleeshiyad badan oo ka tirsan gobolka Canfarta ay TPLF raaceen ayaa moodaysaa inay hadda khadka ka sii baxayso gobolka Canfarta gabi ahaanba ay dowladda federaalka la wareegayso. dowladda federaalka ayaa waxay isku dayaysaa gabi ahaanba inay TPLF ka horeyso gobolada ay ka dagaalamayso sida galbeedka iyo bariga Itoobiya. sidoo kale maamulka Canfarta ayaa maalinnimadii shalay waxay weerar ku soo qaadeen deegaanka Soomaalida magaalada Candhuufo iyo Cadeyto. dagaalada goosgoosa ayaa waxay ka socdaan galbeedka gobolka City saddexda magaalo ee ahaa Garbaciis, Candhuufo iyo Cadeyto. maamulka Canfarta ayaa go'aankiisu waxa uu yahay inuu qabsado saddexda magaalo ama gabi ahaanba gobolka City. maamulka Canfarta ayaa maalmihii soo dhaafay ku hanjabay gabi ahaanba inuu qabsan doono gobolka City dadka ku nool ay yihiin argagixisay ka soo dushay Soomaaliya oo inaan ahayn dad Itoobiyaan ah oo dhashay dalka. maamulka Canfarta ayaa la garanayn meesha uu dhaanka ku furi doono asoo go'aankiisu uu yahay inaan loo kala hadhayn dagaalka ka socda gobolka City shacabkiisana ku dhiirigelinay inay dagaalka galaan gobolkana ay xoreystaan. sidoo kale dowladda deegaanka Soomaalida ayaa isku dayay inuu kooxda Canfarta ka hortago asagoo la sheegayo deegaanka Soomaalidu in wali ku sugan yahay magaaladaasi ciidamada Liu Booliska iyo shacabka oo isgarabsanaya halkaas ku sugan yihiin. talantan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.